الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدد علماء مسؤولين تا حكومة يا جناصتها يا خيارتها لكم فردابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad bay ugu mahadsanyihiin mas'uuliyiinta isxil saaray iyo warbixinta la inasiiyay. waxaynu halkan u joognaana dee waa dhawaaqa dhiilada leh ee biyo la'aanta ah ee haraadka ah ee bulshadeenni naga soo gaaraya. waa mas'uuliyad qof kasta saaran maanta. ugu horeyn ilaahay baynu baryaynaa inuu awoodiisa culayska ay nagaga kor qaado, naxariistiisa mooye naxariis kaloo lagu baahi baxayaana aanay jirin. ugu horeyn allah baynu u qayshanaynaa inaanu waqti iyo samantoona inala suginayno fadligiisa inagu waraabiyo. waxa labaad oo aan kabayaa dhawaaqa dadka isxil saaray inay bulshadeennu u dhaganugulaato. ilaahay fadliga iyo dheeriga uu ina siiyey, hadday mas-uuliyad tahay iyo hadday dhaqaalo tahay iyo hadday aqoon tahay, way nagula xisaabtamayaa. waxaana laynaga rabaa inaynu isugu gargaarro. maanta warkayna soo gaadhayaana waa bulshadii aynu acyaanta u ahayn. dheeriga aynu dheerrahay inaynu isugu gurmanaa waa waajib. dadka isxil saaray oo keliya mas-uuliyaddu ma saaraa. bulshada lala hadlayaa ee ilaahay wax siiyeyna waa inay gurmadkaa iyo baahida bulshadeedana maanta haysata waa inaynu garanaa oo aynu gurmana. waxaa intaa dheer talooyin badan baa halkan laga soo jeediyo. culimmadii iyo codgarkii baa jooga, hadalna ma hadhin. laakiin ilaahay sunnihiisa waxaa ka mid ah culaysna waa jiraa, fudaydna waa jiraa. waxaan deganahay togan Hargeysa agtiisa. biyihii sanadkaa maray wallaahi cabsi weli waan xasuustaa. nimcada ilaahay quraanjada ugu taag yaroo waxay ku tala gashaa sabanka adag. innaga maanta dhaqaalaheenni waa kordhay oo bulshadeenni iyo dalkeenni waa dhismay. dhaqaalaha xukuumadduna wuxuu la kormay dhaqaalaha bulshadeenna. 2005 miisaaniyadda qaranku 40 milyan bay ahayd, maantana waa 500 milyan. bulshaduna dalkii waa dhisato, dhaqaalaheenni waa kordhay. laakiin nolosheennii caadiga ahayd ee aynu ku tiirsanayn waa sidii ilaahay u abuuray wey. waa sidii bay dabagoosi u tahay haradii doollo. sidii baa duleedu biyaa loo dawariyaa, weli waa halkii bay taaganta. sidii baynu weli biyaa u dawarinaynaa. ummad subaxna daadsito subaxna haraadhayaabaynu. waxaynu u baahan nahay qorshe inaynu u samaysano nolosheeda, inaynu ummad aan waxba ka goynayn nolosheeda oo aan ku talagalayn horumar, oo taladu ay halkii tahay berrina abaar baydun culimaynu isugu imaneen. waa la xusay dhinacyo kale oo khuseeya oo dhinacii diinta iyo dhinaca noloshuba ilaahay dee waa dhinacyo waaweyn oo lagu xisaabtamayo. waa itixaan dee haraad. waxaa kaloo itixaana inaanaynaan waxba qabsan karaynoo noloshu ay sideedii tahay. oo awowgeennii tobnaad hadduu haraad u dhintay, inanka maanta joogaana haraad buu dhimanaya. waxaan soo jeedin lahaa oo aan hadalkayga ku soo ururinaya, warbaltalada abaarta iyo biyo la-aanta waxaynu qabsan karayno aynu miisaaniyadeenna ka goyno oo dhaqaalaheenna ka goyno oo bal dhulka horta bal oonkaa ugu daran horta aan oon ka baxno, oon aynu ka baxno oo aynu qorshe ballaadhan samaysano. waxaan eegeegaa anigu miisaaniyadda qaranka siyaasaddana waxaan ka bilaabay xoogayii guddida dhaqaalaha. sanadkan waxaa ku jira 70 milyan oo dollar oo iibkiiyo adeega ku jira. nin wasiiro hawshaa ku shaqale baan weydiiyey, waxaan 70 milyan oo dollar dadka wax weyn bay u qaban lahaayeen. maxaa oo ma garanaysaa buu waa wax aad u yahay. waa kursigii iyo shaqadii lagu shaqeynay oo yaa loo shaqeynaya ummadduba hadday haraad u damin. 70 milyan oo dollar biyo inteebay ka qaban karaan? ganacsataydii waa joogtaan oo dad dhaqaalaha iyo lacagta waa garanaysaa.
ورنولشنا أي نقرر وجوينه ودنتين يو ميزانية دين يو دقاليه يو سياسة دين يو جناحستوي تعيدوك هايسان يو تكلبا برشة هرمر كذا أي نوحوجو جوينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.